السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalkan. Waa mar kale muuqaal hor leh hadaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dabcan musalsalka walaalaha maxaa ka cusub maxaa ku soo kordhay. Sidoo kale waxaan ka daba tagaynaa gooskooska u dambeeyay dhacdooyinka la yaabka lahaa ee ku aragnayaan si sharaxaad la idinku soo gudbinaynaa. waa tidawada hadii markii way soo booqatay janaalkan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like noo saar. waa maasan inta ka bacdi ee soo dhawow hanidii bilaaba gooskooska u dambeeyay xalqada 62 laga soo bandhigay ayaa waxa uu ahaa gooskoos runtii aad u muruga badan kadib markii aan aragnay gabadhii email lagu magacaabayay oo isla markaas ninkii amiir ahaa oo degdegsan waqtigaas gaarigiisa inuu dardaray loo badinayo laakiinse aan la hubin. waa tahay horta dadka intooda badan waxay isweydiinayaan gabadhaasi ma email ba boqolkiiba 90 dadka waxay leeyihiin waa email in yar ayaa ka soo horjeeda ayaa la leeyahay inaysan email ahayn. amiir waqti xaadirkaasi wuxuu la hadlayay qof ayuu la hadlayay gaarigiisa ayuu ku jiray qof ayuuna gaariga marsiin rabay laakiinse inuu marsiin in kala ma sheegi karo laakiin cunugtii baaskiilka saarayd waxaan aragnay baaskiilkeedii inuu dhulka yaalay. sidoo kale waxaa laga yaabaa in la badbaadiyo aysan halkaa ku dhiman qofkii baaskiilka saaraa ama cunugii baaskiilka saaraa waqtigaasi waxaa laga yaabaa in uusan dhimanin amiirna uu wax dhibaato soo gaarsiin. kulle bal ilaa caawa macluumaadada halkaas ka soo bax waan arki doonaa iyo haddii email tahay xaaladeedu sida ay noqon doonto. waa tahay maxaa kalifay in beerkii ay bika isku soo laabtaan. haddaba kaatibada musalsalka ama qoraaga musalsalka waxay jeclaysteen in mar kale ay isku soo laabtaan ay bika iyo beerkii inkastoo markaan hawshoodu ay aad u adkaanayso. dadka badi waxay leeyihiin beerkii keliya ay bika ayuu ka diyaarsanayaa weji ama qorshe ayuu ka diyaarsanayaa markay la heshiisana duuruug sidii hore unbuu kusii ahaanayaa. sidoo kale beerkii iyo ninka toolga lagu magacaabo markaan aad ay isaga hor imanayaan xalqadaha soo socda laakiinse beerkii ay bika u heshiinayaan kadib markii kaalinta labaad ay ku jireen 5 toddobaad hadalhayntooda ay noqdeen dadka labaad ugu hadalhaynta badan ayay ahaayeen 5 toddobaad kaalinta kama bixin. sidoo kale suus ayaa iyaguna isku soo laabtay waa Cumar iyo Suuse waana la hubaa kuwan iyaguna caadi isugu soo laabanayaan xalqada soo socota iyaguna isku soo laabanayaan laakiinse xalqada soo socota gabadhii gaariga la tiiray gabadhii gaarigu dardari rabay haddii email tahay Cumar runtii arrimahaas ayuu ku mashquuli doonaa. haddaba arrinka ugu muhiimkasan la wada sugayo waxaa waaye Cumar maxaa looga qariyay sababta looga qariyay maxay tahay. haddaba isla gooskooska dhexdiisa waxaan aragnay wadaadii seefkii lagu magacaabayay oo asiya kule Cumar noloshiisa kama qasayna ama uma sheegayna si uusan farxadiisa u waayin. waa tahay Cumar waa dhow runtii waa u xanaaqi doonaa Asiya Uljaan iyo sidoo kale Dooruuk iyo sidoo kale wadaadii seefkii lagu magacaabay sidoo kale hooyadiisa Suuzaan sababtoo ah waxay ka qariyeen arrin muhiim ah. hadda ka hor xaafadda ayuu iskaga tegay markii uu ogaaday Suuzaan inay tahay hooyadii qadiir ayuuna u xanaaqay ahayd laakiinse markaan dad badan ayuu u xanaaqi rabaa Cumar goor uu ogaan doonana ma sheegi kari runtii. ani waxaan fahmi la'ahay qoftii Suuzaan ahayd cunuga maxay been ugu soo sheegtay ugu tiri Axmed Ilmaas aabahaaga ma aha. Asiya ayada garanaybo markii uu farxo dhay Axmed Ilmaas aabahay ma aha iyo istiri farxadan uu qoslaya ka qasine Suuzaan maxaa ka qaldan kulley waxa laga yaabaa inay meerin rabaan oo na ogaanayn laakiinse Cumar runta waxay tahay inay ka hor ogaan doonaan bakoon Sarbi iyo Yasmin inay ka hor ogaan doonaan ayayba ila tahay ani ahaantayda. waa tahay isla gooskooska dhexdiisa waxaan ku aragnay ay ahayd qoftii lagu magacaabayay Suuzaan oo markaan u digaysa nabhaad oona kula ninkaasi iskaga fogoonin uu yahay lama huba laakiinse way iska caddahay ninka uu yahay dee kulley waa Axmed Ilmaas waa ninkaas waa iska caddahay. marka nabhaad waxay ila tahay inay ka fogaan doonto ninka lagu magacaabo Axmed Ilmaas maadaama ogaatay Axmed Ilmaas xaaskiisa in ayba tahay sheewaal sidoo kale sheer ay wada leeyihiin sidoo kale sheewaal kama ergi karto hotelkeedan yaray iibsatay kama ergi karto. marka Axmed Ilmaas waxay ku qasbantay inay ka fogaato laakiin waxa laga yaabaa in iska daba socoto oo heshiiyaanna waa laga yaabaa waa macquul. waa tahay gabadhii email ma laga yaabaa inay dhimato muddo ka hor sanad gaaraysa ayana lagu lahaa email ayuu noqon doonaa qofka xiga dhiman doona muhiimka ah laakiinse ilaa hadda uma jeedno. haddaba runtii eeg kuma fududaanayno email dhimashadeedana mid sahlan ma noqon doonto marka ilaa ma ahan in ay dhiman doonto cunugtaas ani ahaantayda laga yaabaa de sida qadiir u dhinto kale inay u dhimato laakiinse bal waan aragnaa xalqada soo socota wixii dhaca. haddaba sidoo kale waxaa jirta arrin muhiima arrinkaas oo ah xalqadii u dambeysay 61aad hoos u dhac yar oo iska normal ah oo adii aan saa u badnayn ayaa ku yimid dhanka TV ahaan ayaa ku yimid laakiin adii kaalinta saddexaad buu markii hore ku jiraan filaya sax marka kaalinta afraad ayuu imaaday badii saddexda kaalmada hore baa muhiima. marka insha Allah toddobaadka xiga
ayaan rajeynayna inaan kaalinta kusoo laabano. Maalinta Jimcaha habeenkii Sabtida soo galaysa waxaa la daawadaa taxane cusub oo lagu magacaabo Charlie Abkini ma la dhahaa oo telefishinka Fox TV waa laga daawadaa. Marka taxanahaasi aad ayuu xiiso badan yahay ayaa la dhahay. taxanahaas xalqadiisa koowaad si normal ay ku bilaabatay laakiinse xalqadiisii labaad kor u kac aan hore loo arag ama score aan hore la dhigin ayuu dhigay kadib markii totalkiisu xalqadiisa labaad 7 noqday. Fox TV ayaa arrinkaas aad ugu faraxday maadaama uu mar hore ugu dambeysay taxane daawasho badan oo telefishinka laga daawado ku dhawaad 12 taxane ama 12 musalsal ya Fox TV ka khasaaray sanadkan gudihiisa oo xalqada 10 asagoon gaadhin la joojiyay waa 12 musalsal. marka musalsalkan ay ku nasanaysaa filaya musalsalka ayaa kaalinta saddexaad naga soo galay. kaalinta labaadna mid telefishinka TV laga daawado odayaashii iyo islaamaha Turkiyada dhan ay soo fadhiistaan oo daawadaan oo daawashadu meesha iska tagaysa taxano oo maafiya ah waayo telefishinka TV laga daawado maalinta Salaasada waxaana la dhahaa Bambu Jahane si ma saasa. marka maalinta subaxda Arbacada waa la daawadaa dhanka YouTube-ka xolba. taxanahaas ayaa kaalinta saddexaad isaguna kaalinta labaad ayuu ku jiraa sax. kaalinta koobaadna habarqabihii Goonuul Day ahaa ayaa ku jiro oo marnaba ka bixin weligii kaasi intuu joogo kale ilamaha inuu ka bixi. Koleyda actor-kan waa iska shidan yahay beerkii Atime waa sax. marka waxaan soo galay kaalinta afraad ayaan soo galay. toddobaadka soo xiga maadaama email iyo xoogaa shil iyo wax jiraan waxay ila tahay in uu korkac aad samayn doono. waad ogtihiin hadda koor Qadiir markuu dhintay waa la yaabay. santii toddobaad uu Qadiir dhintay kaalinta koowaad waana laga kicin kari waayay ahaydba waa la yaabay war walaalaha maxaa ka qaldan baa la dhahay daawashadan halkay ka keenayaan. waa ka xitaa TikTok aan yaabnay. marka email hadii markaan yani dhaawac soo gaaro waxay la tahay insha Allah xalqad soo socota in xoogaa korkac uu iman doono kaalinta labaadna aan sidaas ku iman doono. markaas balhan aragna qaabkii Goonuul Day una soo kan celinaha ma qaabkan ula dagaalamayna. sidoo kale waxa jirta loo filan aad weyn Arbacadan soo socota maanta waa Isniin birmoon saadan waxaa daawan doonaa taxanihii caanka ay Kurulus Usmaan balhan aragna asagana qaabka ay Goonuul Day u heshiyaan. kulay Usmaan markuu soo laabto anagana daawashadeen insha Allah way soo laaban doontaa. kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad in isku dagaali doonaa Goonuul Day isagoo ku meehay koobaad inuu iska dhigta laga yaabaa. waa tahay daawade kulay bal waan ka war sugaynaa wixii macluumaad cusub insha Allah tacaala waan idin soo wadaagaynaa. intuu dambeysay muuqaalka waxa laga yaabaa waxaan idinku mashquuliyay daawashada iyo arrimahaas. daawada insha Allah muuqaalka waxaan rajeynayaa inaan musalla Turkiga dhan hal mar soo dulmeero akhbaaradkooda dhan macluumaadada dhan la wadaagno. sidoo kale musalsalka walaalaha macluumaadada way badan yihiin wali maanan Instagram-kii Twitter-kii u gudbin Twitter-ka dan u gudbo bas macluumaad iyo hadal haynta la isdhax wada ma maleynaysid. marka waa muuqaalka like iska saar marba hadaad halkan ila soo gaartay muuqaalka like iska saar sidoo kale comment waa meesha kale fikirka ku dhiiban kartid. وأنا أقول صاحبك إن خالد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.